بسم الله الرحمن الرحيم ومعلنكيني لغة إنجليش كأستاذ حسين إساق محمود maanta waxaan idiin soo diyaariyey 10 erayo ee English ah oo aadna faa'iido u leh insha Allah. Vocabulary waa erayo weeyaan vocabulary. Ereyga ugu horeeya waxaan soo qaadanaynaa insha Allah waxaa lagu dhaho afka Englishka gurid, in cunto la guro oo kale, in loo guro cunto. Waxaan dhahaynaa markaas ereygaas waa dish out. Waa dish out gurid weeyaan, dish out gurid. Marka tusaale waxaan dhihi karaynaa may I dish out miyan ku guraa. May I dish out miyan ku guraa food cunto for you adiga. Number two wuxuu noqonayaa ereyga lagu dhaho afka Englishka bilaash, wax in bilaash lagu qaato oo lacag la'aan ah, free ama bilaash waxaa lagu dhaha afka Englishka. Haddaba waxaa lagu dhahaa ereygaasi waa gratis. Tusaale waxaan dhahaynaa do I take it ma ku qaataa, do I take it ma ku qaataa by gratis, bilaash ma ku qaataa. Do I take it miyan ku qaataa by gratis, bilaash. Haddaba ereyga xiga, ereyga saddexaad waxaa lagu dhahaa afka Englishka bakhayl. Qof oo bakhayl ah oo aan waxba bixinin oo gacantiisa xiran maxaa lagu dhahaa afka Englishka bakhayl. Haddaba waxaa lagu dhahaa ereyga Englishka bakhayl waa cheapskate. Cheapskate bakhayl weeyaan. Tusaale marka waxaa dhihi karaydaa girls gabdhaha ama girls gabdhuhu do not like ma jeclo, do not like ma jeclo cheapskate boys wiilasha bakhayliinta ah. Girls gabdhuhu ama girls gabdhuhu do not like ma jeclo cheapskate boys wiilasha oo bakhayliinta ah. Okay, ereyga xiga, ereyga afraad maxaa lagu dhahaa afka Englishka khaali. Qofka wax isu nikaaxa ama wax isku dara, khaali ama qofka wax isu nikaaxa ama isku dara maxaa lagu dhahaa afka Englishka qaali. Haddaba waxaa lagu dhahaa afka Englishka qaali waa registrar waa khaali weeyaan. Tusaale marka waxaa dhihi karaydaa call u yeer the registrar khaaliga, call u yeer the registrar khaaliga u yeer. Si uu markaasi officiate oo markaa isugu nikaaxa, officiate si uu markaa isugu nikaaxa, officiate si uu markaa isugu nikaaxo the couples lamaanayaasha, the couples lamaanayaasha. Number 5 maxaa lagu dhahaa afka Englishka tabeelo. Tabeelaha oo fiilooyinka lagu xira tabeelo maxaa lagu dhahaa afka Englishka. Haddaba waxaa lagu dhahaa afka Englishka tabeelo pylon tabeelo weeyaan. Pylon tabeelo weeyaan. Marka waxaan gelinaynaa marka jumlad waxaan dhahaynaa I hit my head on a pylon. Anigu hit waxaan ku dirsaday my head madaxayga. Anigu hit waxaan ku dirsaday my head madaxayga on a pylon tabeelo weeyaan, on a pylon. Okay, ereyga xigo number 6 ereyga xigo weeyaan. Ereyga lixaad waa tahay waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo in koorsada Englishka online-ka ay socoto isqoristeeda. Haddaba haddii aad danaynayso koorsada Englishka ee online-ka ah fadlan ku soo biir. waxaad ku qaadan doontaa koorsada Englishka insha Allah erayo fara badan, wada sheekaysiyo fara badan iyo grammar ayaad ku qaadan doontaa koorsadeedii insha Allah. Haddii aad danaynayso fadlan ugu soo biir koorsada Englishkayga online-ka ah. waa tahay ereyga xigo number 6 ereyga lixaad maxaa lagu dhahaa afka Englishka ku mashquulid. In qof ku mashquulo, ku mashquulid maxaa lagu dhahaa afka Englishka ku mashquulid. Haddaba waxaa lagu dhahaa afka Englishka ku mashquulid waa dwell on ku mashquulid weeyaan, dwell on. marka waxaan dhahaynaa markaasi ku mashquulid waa dwell on ku mashquulid. waxaa dhihi kartaa marka don't dwell on miyahay ugu mashquulin, don't dwell on miyahay ugu mashquulin. Number 7 waa numberka 7 maxaa lagu dhahaa afka Englishka ashlow ama qof cash badan. Haddaba waxaa lagu dhahaa ashlow ama cash badan waxaa lagu dhahaa afka Englishka waa finicky cash badan weeyaan, finicky. Marka tusaale marka waxaa dhihi karaydaa he is isaga waa finicky qof cash badan, he is finicky isaga waa qof cash badan, he is finicky.
waa tahay. Number 8 maxaa lagu dhahaa afka Englishka u xoog sheegasho in qof loo xoog sheegto u xoog sheegasho. haddaba waxaa lagu dhahaa afka Englishka u xoog sheegasho waxaa lagu dhahaa waa bully. Bully u xoog sheegasho. Do not bully ha u xoog sheeganin. Do not bully ha u xoog sheeganin the child canuga. Do not bully ha u xoog sheeganin the child canuga. Number 9 is gonna be maxaa lagu dhahaa afka Englishka kala celin in laba qof isdagaalayo ama laba caruur isdagaalayso in la kala celiyo. haddaba waxaa lagu dhahaa afka English kala celin waxaa lagu dhahaa waa pull apart. Pull apart kala qabasho ama kala celin. Pull apart waxaan dhahaynaa markaasi pull apart kala qabo ama kala celi. Pull apart kala celi the case caruurta. Pull apart the case kala qabo ama kala celi caruurta. Number 10 is going to be my last word for today inshallah. It's going to be rethought with. Rethought with ku afcilin way ergaas. Rethought with ku afcilin. waxaa dhihi kartaa marka do not rethought ha ku afcilinin. Do not rethought ha ku afcilinin. Do not rethought ha ku afcilinin with your parents waalidiintaada. With your parents waalidiintaada. That is the end of my words for today inshallah. I'm going to be teaching you more and more vocabulary during my English online class, and I will benefit for you inshallah as long as I'm alive on earth. Thanks for watching my video. Bye my students.